muuqaalkeena maanta wuu ka duwan yahay muuqaaladii aan halkan ku soo bandhigi jirnay sababtoo waxaan kaga hadli doonaa muuqaalkan qisada nin laf dhuungashay ku noqday madaxweynihii hore ee la riday ee dalka Suuriya ee lagu magacaabay Bashar al-Assad. ninka ay ku saabsan tahay qisadeena maantana waxaa lagu magacaabaa Cabdilbaasid Saaruud. waxaan iskula ogaan doonaa muuqaalkeenan maanta sidee wiil dhalinyaro oo iska ciyaari jiray ciyaaraha kubadda cagta ahaana goolyahan aad u xariif oo waliba qaaday jaayisada kala duwan oo ay ka mid ahay jaayisada inuu noqday goolhayaa labaad ee ugu wanaagsan qaaradda Aasiya, sidoo kalena ay rabeen inay iibsadaan naadiyo kala duwan oo ka ciyaara dalalka Yurub si uu goolhayahooda u noqdo. sidee buu isugu bedelay ninkaasi muddo kooban kadib? ninka koowaad ee la raadinayo oo ay raadinayaan dowladdii Bashar al-Assad iyo ciidamadiisii iyo waliba ninka maamula ee aasaasay garabka ugu weyn ee iska caabinta kana dhisan magaalada Ximis ee dalka Suuriya. markaad ogaato ninkan qisadiisa iyo sida ay uga timi badhaadhahaas oo ay isugu bedeshay qofka koowaad ee Bashar al-Assad uu raadinayo, waad la yaabi doontaa run ahaantii. laakiin sidoo kale markaad ogaato muuqaalkan dhexdiisa qaabka uu dhintay wiilkaasi markii dambe, waad ka murugoon doontaa waana la qalbi jabi doontaa. haddee muuqaalkeena maanta wuu ka duwan yahay muuqaaladii hore sababtoo waxaan ku baran doonaa muuqaalkan qisada nin haliyey ah oo wax walba uu haystay uga tegay si uu u xoreeyo waddankiisa iyo dadkiisa. markaasi aan isla ogaano qisada ninkan oo faahfaahsan ila sii socon daawada muuqaalka ilaa dhammaadka. qisadeena maanta waxay bilaabanaysaa sanadkii 1992 kowdii bishii koowaad ee sanadkaas. dadka intooda badani waxay ahaayeen qaar iska xafladaysanaya oo ku faraxsan sanadkan cusub ee bilaabanaya. laakiin haddii ayn aadno waqtigaas dalka Suuriya, gaar ahaan magaalada Ximis, weliba gaar ahaan haddii ayn kasii aadno magaaladaas cisbitaalka weyn qaybta dhalmada, halkaas waxaan ka arki lahayn arrin aad u la yaab badnaa, iyadoo qaybtaasi ahayd qaybta dhalmada ee hooyooyinku ay ku dhalaan carruurta yaryar oo laga rabay in dhammaan dadka halkaas jooga ay faraxsanaadaan maadaama uu u dhalanayo ilmo yar oo cusub. laakiin maalintaas qaybta dhalmada waxaa jiray nin fadhiyey meel cisbitaalkaas ka mid ah, wuuna murugaysnaa ninkaasi oo wuxuu ka murugaysnaa inuu ilmo yar u dhalan doono. ninkaasna waxaa lagu magacaabayay Mamduux Saaruud, waana aabbaa ninka qisadeenana ay ku saabsan tahay ee lagu magacaabayay Cabdilbaasid. haddaba si aan isula ogaano sababta Mamduux Saaruud uu la murugaysnaa maalintaas oo weliba uga murugaysnaa ilma yar ee cusub ee u dhalan doona, aan ku laabano waqtigan yar ka hor. waxaan arkaynaa in Mamduux uu ahaa nin aad u faqiira. faqiirnimada aan sheegaynaana maaha ta maskaxdaada kusoo dhacaysa marka aad maqasho kelmadda faqiir, laakiin faqiirnimada uu ninkaasi ku jiray waxay ahayd mid aad u daran ilaa xad uu gaadhay inuu ka dhintay ilmo yar oo uu dhalay oo gaajo darteedu u dhintay. waqtigaasna waxaa haystay Mamduux carruur gaadhaysa 8 carruura, manuu rabin oo diyaar uma ahayn inuu dhalo ilmo yar oo kale. carruurtaas uu haystayna waxay ku noolaayeen nolol aad u adag oo faqiirnimada kasii hoosaysa, waxayna ku qasbanayeen kuwa dhinta mooyaane kuwa sii noolaada in maalin walba ay sii noolaadaan ay ku noolaadaan faqri iyo baahi aad u daran. aabbahood Mamduuxna wuxuu ahaa maalin kasta mid arkaya carruurtiisii oo ku sugan xaaladaas, laakiin waxuu isagu samayn karaa may jirin. xitaa carruurtiisa intooda badan waxay ahaayeen qaar aan gelin iskuullada, kuwa iskuulka galaana waxay kaga bixi jireen iskuulka waqti hore. ilaa heerkaas aan idiin soo tilmaamay ayuu ahaa faqriga uu ku jiray ninkaas lagu magacaabayay Mamduux. wuxuuna ahaa mid ka shaqeeya tumaal birta dhalaaliya, laakiin shaqadiisu joogta may ahayn oo maalin kasta muu heli jirin. maalin haddii uu shaqeeyana 10 maalmood oo kale ayuu bilaa shaqo ahaan jiray. bil kastana wuxuu ahaa mid kolba guri u guura sababtoo muu awoodeen inuu iska bixiyo kirada guryaha. sababtaas darteed iyo xaaladaas adaga ay ku noolaayeen dartoodna waxay isku waafaqeen isaga iyo xaaskiisii inaanay dhalin ilmo yar oo dambe ilaa ay ka wanaagsanaanaysa xaaladooda dhaqaale. heshiiskaas ayayna ku jireen labadoodii muddo 3 sannadooda ilaa maalin maalmaa ka mida uu riyooday ninkaas lagu magacaabayay Mamduux, oo kadibna uu u tegay sheekh riyooyinka fasira si uu riyadiisa ugu soo fasiro. sheekhaasina uu fasiray Mamduux riyadiisii oo wuxuu sheegay in haddii xaaskiisu ay uur u leedahay waxaad iska ilaalisaa inaad uurkaas soo rido oo aanu ilmaha sare ku dhalan ayuu ku yidhi. sababtoo riyadaada fasirkeedu waxa weeye in xaaskaagu ay uur kuu qaadi doonto oo kadibna ay kuu dhali doonto wiil ka duwan carruurta kale oo dhan. waxayna dhali doontaa xaaskaagu wiil wax badan ka bedeli doona adduunka, reerkiina magacoodana kor u qaadi doona oo meel sare gaadhsiin doona. sidoo kale wuxuu wanaajin doonaa xaaladiina dhaqaale ee aadka u adag. Mamduux wuxuu ka soo baxay sheekhii u fasirayay riyada oo wuxuu ka soo qaaday xaaskiisii baadhitaan uu ku baadhayay inay uur leedahay.
wuxuuna ogaaday in xaaskiisu ay u leedahay uur. waxaana socday maalmihii oo hooyadaasi waxay ahayd mid uurkaas wada ilaa laga soo gaadhay maalintii dhalashada. mamduuxna wuxuu soo kaxeeyey xaaskiisii oo wuxuu keenay cisbitaalka dhalmada ee ku yaalay magaaladaas lagu magacaabiyey Ximis. halkaasna wuxuu geliyey xaaskiisii qolkii dhalmada ay ku dhalaysay. isna bannaanka ayuu uga soo baxay oo wuxuu bilaabay inuu halkaas ka ooyo, sababtoo ah keliya kama unaxsanayn in wiilkaasi uu ku dhalan doono noloshan adag ee faqriga. taa waxaa kaga sii darnaydba oo mamduuxu ka naxsanaa xitaa muu hayn lacag uu siiya cisbitaalkan ay xaaskiisu ku dhalayso. laakiin iyadoo sidaas xaalku ahaa, haddana mamduux niyadda ayuu hagaajistay oo hididiila fiican ayuu ka lahaa wiilkaas sare u dhalan doona, sababtoo waa kii sheekhii ugu fasiray riyadiisii inuu wiilkaasi noqon doono wiil wax badan ka bedeli doono noloshooda. wuuna dhashay wiilkaasi oo wuxuu bixiyey magaca Cabdilbaasid. halkaasna waxaa ku dhashay maalintaas ninka uu ku saabsan yahay muuqaalkeena maanta ee lagu magacaabo Cabdilbaasid Asaaruud. carruurnimadii ninkaas lagu magacaabo Cabdilbaasid ma ahayn carruurnimo caadiya oo lamida sida carruurta yaryar ee kale. dadkii yaqaanay Cabdilbaasid markii uu yaraanaa waxay ka sheegeen carruurnimadiisii inuu ahaa qof aan la mid ahayn carruurta kale oo waxyaabo badan ayuu kaga duwanaa. tusaale ahaan macallimadiisii markii uu yaraa wax u dhigi jirtay dugsiga hoose oo lagu magacaabayey Shiiriin. waxay sheegtay in Cabdilbaasid isagoo ku jiray dugsigii hoose, da'diisuna ay maraysay meelaha 9 jir, ayaa wuxuu ahaa mid isugu wada yeedha carruurta yaryar ay wada dhigtaan fasalka. wuxuuna ahaa mid u jeediya carruurtaas khudbad uu kaga hadlayo xorriyadda iyo cadaaladda. isagoo da'daas maraya wakhtigaas aanay carruurta yaryar waxba ka fahansanayn waxa loo yaqaano xorriyadda iyo cadaaladda, ayaa haddana wuxuu ahaa mid khudbadaha noocaas u jeediya carruurta yaryar. ninkan oo ay saaxiib ahaayeen Cabdilbaasid ayaa wuxuu sheegay markii ciyaalka ay ahaayeen ee kubadda ay wada ciyaari jireen. wakhtigaas Cabdilbaasid wuxuu ahaa mid ku adkaystay inuu isagu noqdo hogaamiyaha kooxa kubadda ciyaaraya, oo xitaa marka uu kala qaybinayo carruurta yaryar ee kooxa uu kala qaybinayo wuxuu ahaa mid u bixiya carruurtaas magacyo waaweyn oo micnayaal waaweyn xambaarsan, sida kooxdii sharafta iyo kooxdii xorriyadda. arrinkaasna wuxuu ka dhigay eheladii carruurtii yaryar ay wada ciyaari jireen wiilkaas inay kala hadhaan carruurtoodii oo ay u diidaan inay la ciyaaraan Cabdilbaasid si aan u saameyn ugu yeelan carruurtooda. sababtaa waxaa la yaab lahayd wiilkan yar ee carruurta ee maskaxdiisa ay ku jiraan waxyaabahaas aadka u waaweynay, oo xitaa kooxii carruurta u bixinaya magacyadaas waaweyn ee xorriyadda iyo sharafta. sidoo kale asxaabtiisa ay saaxiibka ahaayeen carruurnimadiisii iyo dhallinyarnimadiisii waxay sheegeen in Cabdilbaasid uu ahaa mid ka duwan dhammaan dhallinyarada kale oo qaab fikirkiisuna uu ka duwanaa. sidoo kale markastana wuxuu u sheegi jiray carruurta kale uu ku waanin jiray markaan weynaano waa inay sameynaa wax weyn oo laynagu soo xasuusto markaan dhimanno. sidaasna waxay ku ogaanay shakhsiyadda ama carruurnimadii ninkan lagu magacaabiyey Cabdilbaasid iyo sida ay ahayd carruurnimadiisii inuu ahaa wiil ilaa yaraantiisii ay ku jirta naftaas hogaaminta iyo karaamada jecel. sidaas ayuuna xaalkiisu ahaa ilaa uu ka gaadhay da'da 14 jirka. wakhtigaasna wuxuu go'aansaday Cabdilbaasid inuu go'aan adag qaato, go'aankaas oo ahaa inuu ka baxo iskaga tago waxbarashadiisii iskuulka gebi ahaanba. go'aankaasna wuxuu u qaatay sababtoo ah Cabdilbaasid wuxuu isku arkay inaanu ku wanaagsanayn waxbarashada iskuulka, kumana u qanacsanayn manaahijta waxbarasho ee waddankaas lagu dhigto. sababtaa waxa qoray manaahijtaas madaxweynihii ka horeeyey Bashaar al-Asad oo aabihii ahaa, oo isaga oo keliya ayaa lagu weyneynayay. wax walba oo halkaas ku qoranna wuxuu ahaa wax isaga oo keliya ka hadlaya. haddii ay tahay buugaagta taariikhda ee lagu dhigtay iskuullada, waxay ahaayeen buugaag ka sheekeynaya taariikhda madaxweynaha wakhtigaas joogay ee lagu magacaabayey Xaafid al-Asad. haddii la eego kutubta iyo buugaagta diintana, waxay ahaayeen iyaguna qaar loogu ducaynayo oo waafaqsan waxa uu ogol yahay madaxweynahaasi oo keliya. sidaa darteed uu ka daalay Cabdilbaasid waxyaabahaas oo muu rabin inuu wakhtigiisa oo dhan ku lumiyo waxbarasho noocaasa. markii uu ka tegay waxbarashadaasna, hadalkii uu ku yidhi aabihii wuxuu ahaa, ma doonayay inaan dayaco oo aan ku qaato cimrigayga wakhtiga ugu wanaagsan waxbarashada noocaasa. waxaan doonayaa inaan sameeyo shay faa'iido u leh dadka ku nool magaalada Ximis oo dhan. Cabdilbaasidna wuxuu ahaa mid aaminsan in awooddiisa iyo waxa uu samayn karaa ay ka weyn tahay keliya buug la xifdiyo oo aan lahayn faa'iido sidaas sii weyneyn. sidaa darteed wuxuu rabay inuu ka gaadho uu ka gala adduunka heer wanaagsan. laakiin markii uu ka baxay waxbarashadii, wuxuu is arkay inaanay jirin wax kale uu sameeyaa. sidaa darteed wuxuu ahaa mid iska sii watay ciyaaristii kubadda cagta ee aadka uu jeclaa. si caadi ayuuna iskaga ciyaari jiray xaafadooda dhexdeeda oo dhallinyarta kale ayuu la ciyaari jiray. ilaa maalin maalmaa ka mida uu arkay Cabdilbaasid oo kubad ciyaaraya, goolahana ku jira. ninkan oo kooch u ahaa mid ka mid a kooxaha waaweyn ee dalka Suuriya ka dhex jiray.
wuxuuna ahaa ninkaas tababaraha mid soo booqday maalin maalmaha ka mid ah guri ku yaalay magaalada Cabdilbaasid uu deganaa ee lagu magacaabayay Ximis. laakiin wuxuu ku arkay halkaas arrin la yaab leh. wuxuu arkay koox dhalinyaro oo meel garoona kubad ku ciyaaraya, laakiin waxa dareemihiisii soo jiitay ee aadka uga yaabiyey wuxuu ahaa wiil dhalinyaro oo goolaha ku jiray kaasoo ahaa wiil hibo aad u weyn u leh goolaha. wuuna ag istaagay tababarahaasi carruurtaas ciyaaraysa oo uu daawaday. wuxuuna halkaas ka arkay maalintaas inuu hortaagan yahay mawhibad aad u weyn oo faa'iido badan u yeelan karta haddii lagu daro kooxaha waaweyn ee waddankaas ka dhisan. wuxuuna u tegay ninkaas tababaraha wiilkii Cabdilbaasid oo wuxuu ku yidhi waxaad ii geysaa guriga qoyskaaga. wuuna soo tusay qoyskiisii oo wuxuu soo bandhigay ninkaasi qoyskii Cabdilbaasid lacag gaadhaysay $2,000 si ay uga oggolaadaan ama Cabdilbaasid uu heshiis ula galo inuu ku biiro naadiga uu tababaraha u ahaa ninkaasi oo lagu magacaabayay naadiga Alkarama si uu noqdo Cabdilbaasid naadigaas gool hayaa u ciyaara. dabcan aabbihiina muu diidin arrinkaas. sidoo kale Cabdilbaasid isaguna wuxuu ahaa mid aad ugu faraxsan arrinkan sababtoo ah naadigaas Alkarama wuxuu ahaa naadi uu aad u jeclaa Cabdilbaasid. mararka qaarna wuxuu ahaa mid uga soo baxsadaba iskuulka uu dhigan jiray si uu aad u soo daawado ciyaaraha uu ciyaari jiray naadigaasi. isagoo da'diisu ay maraysay 14 jir ayuuna ku soo biiray Cabdilbaasid naadigaas oo waxaa lagu daray kooxda da'da yar ee soo koraysa ee naadigaasi uu leeyahay. dhowr ciyaarood markii uu halkaas ka ciyaarayna waxay ogaadeen maamulkii naadigaasi in ninkan uu yahay mawhibad aad u wanaagsan. sidaa darteed waxaa laga soo saaray kooxdii da'da yarayd oo waxaa lagu soo daray kooxdii waaweynayd. maalmahaasina waxay u ahaayeen Cabdilbaasid sidii riyo oo kale oo waxyaabaha aanu markii hore ku fikri jirin ayuu muddo kooban ku helay. qoyskiisiina xaalkoodii uu wanaagsanaaday oo waxay gaadheen heer ay iibsadeen markii ugu horraysay noloshooda guri gaar oo iyagu ay iska leeyihiin. Cabdilbaasidna wuxuu ahaa mid aad ugu faraxsan kubaddan iyo naadigan uu ku soo biiray sababtaa wuxuu dareensanaa inuu helay meeshii isbeddelka uu ka samayn lahaa ama wuxuunu ka qaban lahaa. wuxuuna ahaa mid ku sheega waraysyada laga qaado oo dhan inuu doonayo inuu noqdo mid ay ku faanaan dadka uu ka dhashay uu ka soo jeedo. maadaama la arkay Cabdilbaasid inuu yahay mawhibad soo kacaysa wuxuu noqday mid ay doonayaan oo ay soo dalbanayaan dhammaan naadiyada kale ee ka dhisan dalkaas Suuriya. waxaana jiray naadi soo bandhigay inuu ku iibsado lacag gaadhaysa $300,000 si uu Cabdilbaasid iyaga ugu ciyaaro oo ugu saftayaga. laakiin naadigii haystay ee Alkarama way diideen inay qaataan bandhigaas sababtoo ah waxay ogaayeen inay ku iibin karaan Cabdilbaasid malaayiin dollar oo qiimihiisuna uu sidaas u weyn yahay. muddo koobanna wuxuu noqday wiilkaasi Suuriya oo dhan gool hayaa ugu mawhibada badan uguna wanaagsan oo wuxuu gaadhay heer uu ciyaaro waddankiisa koobabka waaweyn ee caalamka. magaciisina wuu caan baxay oo dadkii oo dhan ayaa bartay qofka uu yahay iyo mawhibadiisa aadka u saraysa ilaa uu gaadhay heer ay soo dalbadaan naadiyada caalamku oo waxaa soo dalbaday naadi Talyaani ee ka dhisan inuu iibsado oo iyaga uu ciyaaro. waxaana lagu abaalmariyey Cabdilbaasid abaalmarino kala duwan oo waxaa la siiyey jaayisada inuu noqday gool hayaa koobaad ee ugu wanaagsan wadamada Carabta oo dhan iyo sidoo kale gool hayaa labaad ee ugu wanaagsan qaaradda Aasiya. wuxuuna noqday mid ka caana dhammaan wadamada Carabta oo dadkii oo dhan ay garanayaan. sidoo kale xaaladiisii dhaqaale ee markii hore aadka u adkayd way wanaagsanaatay iyaduna oo wuxuu noqday mid u dhow milyaneer. qoyskiisiina xaaladoodii way wanaagsanaatay oo wuxuu beddel u siiyey noloshii adkaydii ay soo mareen iyo dhibaatooyinkii adkaa ee nolosha ay soo marisay oo dhan. kooxdii soo dalbatay Cabdilbaasid ee Talyaaniga ahayna waxay rabeen inay iibsadaan ninkan oo ay ka iibsadaan kooxdii haysatay Alkarama. wayna oggolaadeen heshiiskaas oo waxaa la rajaynayay in Cabdilbaasid uu ku biiro naadigaas Talyaaniga oo uu ka ciyaaro dalalka Yurub. markii Cabdilbaasid da'diisu ay maraysay 19 jir oo ay uga harsanayd wax yar inuu ka ciyaaro dalalka Yurub, nasiib darro sanadkaasi wuxuu ku beegnaa sanadkii 2011. waqtigaasna waxaa bilaabmay kacdoonkii ka dhacay dalka Suuriya. laga soo bilaabo maalintii koowaad ee uu bilaabmay kacdoonkaas laga soo horjeeday xukuumadda. Cabdilbaasid wuxuu go'aansaday inuu ka tago wax kasta uu haystay iyo wax walba oo gacantiisa ku jiray oo kadibna uu aado xaafadii uu ka deganaa magaaladii Ximis oo sidoo kalena ahayd xaafadii uu ku dhashay. halkaasna uu ka bilaabo kacdoon cusub. mudaharaadkii koowaad ee ka dhacay magaalada Ximis ee lagu dalbanayay in lagu rido xukunka waddankaasna waxaa hogaaminayay Cabdilbaasid. wuxuuna go'aansaday Cabdilbaasid inuu ka faa'iidaysto caanimadiisa iyo inuu yahay qof dadka oo dhan ay wada yaqaanaan. wuxuuna isugu yeedhay taageerayaashiisii taageeri jiray markii uu ciyaari jiray oo wuxuu bilaabay inuu akhriyo uu yeedhiyo hadalla ay ka daba odhanayaan. hadalladaasna waa hadalladii lagaga dalbanayay madaxweynaha waddankaas ee Bishaar al-Asad inuu kaga dego xukunka.
cabdilbaasidna dadkaasuu isugu yeedhay oo uu soo saaray wakhtigaas waxay gaadhayeen kumanaan qof oo mudaharaadaya oo ku mudaharaadaya in laga tuuro xukunka ninkaas keligii taliska ee Bishaar al-Asad. xaafado dhan ayayna dadkii oo dhan ay ahaayeen qaar isku soo wada baxay oo mudaharaadaya. maalin kastana wuxuu ahaa ninkaasi mid isugu yeedha dad cusub oo u jeediya hadalla iyo weedho lagu eriye madaxweynahaas. dadkaas mudaharaadayna waxay ahaayeen qaar qaybo odhaahiyiisaas oo ku celceliya caannimadiisiina way isbeddeshay wakhtigaas cabdilbaasid oo haddii markii hore lagu yaqaanay inuu yahay ciyaartoy xirfadiisu ay wanaagsan tahay, iminka waxa lagu bartay inuu yahay kii kacdoonka wada ee kicinayay dadka. maalmo kooban gudahoodna wuxuu ka yimi wiilkaas dhallinyarada ee lagu magacaabayay cabdilbaasid, wiil nolol wanaagsan iskaga nooloo naadiyada caalamku ay doonayaan inay iibsadaan oo ay ku iibsadaan malaayiin dollar. sidoo kalena ah goolhayaa labaad ee ugu wanaagsan qaaradda Eeshiya, wuxuuna hal mar u noqday nin kacdoon wada oo kasoo horjeeda nidaamka iyo xukunka keligii taliska ee maamulayay waddankiisa. wuxuuna ka tegay uu iskaga tegay wax kasta uu haystay, haddii ay tahay lacagtii uu haystay iyo caannimadii iyo ciyaaristii kubadda cagta. wax walba uu haystay uu iskaga tegay ninkaasi, wuxuuna go'aansaday inuu ku biiro uu ag istaago shacabkiisa cadaaladda iyo sinaanta raadinaya. taasi uuna ku caanbaxay markii dambe oo wuxuu noqday mid meel kasta ka hadlo oo dadkii kiciya. hadallada iyo heesaha uu qaadi jiray ee dadka uu ku kicin jirayna waxay ka mid yihiin heesaha ugu caansan ee loo qaaday xukunkaas. ilaa haddana way yaqaanaan dadka Suuriya heesihiisa oo way qaadaan. si kastaba ahaatee kacdoonkaas silmiga wuxuu socday muddo oo wax faa'iida uu keeni waayey, waxayna garowsadeen cabdilbaasid iyo dadkii la midka ahaa ee waday kacdoonada in mudaharaadyada silmiga aanay waxba ka qaadayn ninkan diktaatoorka ee waddanka haysta oo uu leynayo dadkaas ku kaco hortiisana uu ka leexinayo. sidaa darteed cabdilbaasid asaaruut wuxuu aasaasay garabkii ugu horeeyay ee iska caabineed ee laga aasaasay magaalada Ximis, wuxuuna ku magacaabay Shuhadaa al-Bayaada. wax walba oo ku baxaya ama lagu bixinayo kooxdaas hubaysan ee uu aasaasay ninkaasina, haddii ay tahay rasaasta iyo hubka ay adeegsanayaan iska caabintu, wuxuu ahaa mid gacantiisa iyo jeebkiisa ka dhiiba. lacagtaasuu ku bixin jiray waxyaabahaasina waxay ahayd lacagtii uu urursaday intii ciyaartoyga uu ahaa ee mushaar ahaanta uu qaadan jiray. xukuumadda Bishaar al-Asad laga soo bilaabo bilowgii waxay u arkayeen cabdilbaasid inuu halis ku yahay xukunkooda, sababtoo dadka oo dhan way jeclaayeen cabdilbaasid oo nashiidooyinka iyo heesaha uu qaadaana waxay ahaayeen qaar si degdega u faafa oo dadku ay qaybaan markiiba. shakhsiyaddiisuna waxay ahayd mid xooggan oo hogaamiya ayuu ahaa, wuxuuna awood u lahaa inuu qanciyo dadka oo afkaartooda uu bedelo kana dhiga dadku inay diidaan dulmiga oo ay dalbadaan xuquuqdooda. wuxuuna ka dhigay 100,000 oo Suuriyaan inay u soo baxaan waddooyinka iyagoo ku heesaya oo ku celcelinaya aqwaashiisa iyo heesii uu isagu sameeyey. markii uu arkay Bishaar al-Asad ninkan dhaqdhaqaaqyada badan ee dadkii oo dhan kicinaya halistana ku ah xukunkiisa, Bishaar wuxuu go'aansaday inuu ninkan iska laaluusho oo lacag uu siiyo. weliba lacag kaliya maaha ee wuxuu ku yidhi, waxaan ku siinayaa guryo iyo hanti badan iyo wax kastoo aad u baahan tahayba, waxaana kugu celinayaa caanimadii kubadda cagta oo waxaad noqonaysaa mar labaad laacib caan oo ka ciyaara adduunka. markaa waxaad noqotaa muxaafid oo iska daa mucaaridnimadan aad wado. waxaana rabaa inaan idiin sheego haddii Bishaar al-Asad uu ku guulaysan lahaa isku daygaas uu isku dayay inuu iska laaluusho cabdilbaasid, wuxuu awoodi lahaa inuu istaajiyo dhammaan kacdoonnadii lagu waday oo iska caabintuna halkaasi ay ku istaagi lahayd. laakiin cabdilbaasid dabcan wuu diiday bandhigaas uu soo bandhigay madaxweynahaasi oo markii horeba ninkaas warkiisu u caddaa, sababtaa waa kii uga tegay caanimadii iyo lacagtii kubadda cagta ee uu haystay markii hore qadiyadan iyo arrinkan uu wado. dabcan qof waxaas oo dhan u sameeyey markii horeba qadiyad darteedna macquul maaha in la iibsado oo lacag iyo waxaan dhaamin lagu iibsado. maadaama uu diiday ninkaasi bandhigii madaxweyne Bashaar uu soo bandhigayna, cabdilbaasid wuxuu noqday qofka koowaad ee ay raadinayaan xukuumadda Bishaar al-Asad, waxaana la rabay in lasoo qabta ninkaas ama la iska horleexiyo wax kastoo ay ku qaadato. dabcan wuxuu ahaa cabdilbaasid midaan si fudud lagu helayn oo wuxuu ku dhex jiray dhalinyaro kale oo iyaguna kacdoonka waday oo hubaysnaa. sidaa darteed si ay u cadaadiyaan ninkaas oo ay uga dhigaan inuu issoo dhiibo oo xukuumadda uu isku soo dhiibo, waxay dileen hooyadii, sidoo kale waxay dileen 2 ka mid ahaa walaaladii si ay ugu qasbaan ninkaas waxa ay rabaan. waxayna ku lahaayeen soo bax waan kuu daynaynaa qoyskaaga haddii aad issoo dhiibto. laakiin wuu diiday cabdilbaasid inuu issoo dhiibo oo maadaama uu ahaa dadka ugu waaweyn uguna caansan kacdoonka, wuxuu islaa haddii aad u tagta madaxweynahaas Bishaar al-Asad oo aad isu dhiibto waa laguu dayanayaa oo halkaasi uu ku damayaa kacdoonkanaad wadaan.
sidaa darteed waxaa la dilay dad badan oo heelkiisii iyo qaraabadiisii ka mid ahaa si ay uga dhigaan inuu ka murugooda arrinkaas oo kadibna uu isoo dhiibo. waxaana la duldhigay madaxiisii abaalmarin gaadhaysa $1 milyan ciddii soo sheegta macluumaad lagu soo ogaanaya meesha uu ku sugan yahay cabdilbaasid. laakiin iyagoo reer ximis intooda badan ay ogaayeen meesha uu joogayo waxa uu samaynayo, haddana muu jirin qof soo basaasay oo soo sheegay, maadaama ay jeclaayeen ninkaas dadka oo dhani oo qofna kumuu dhiiran inuu soo basaaso uu soo sheego meesha uu joogo. waqtigii iyo sannadadiina way socdeen. garabkii hubaysnaa ee cabdilbaasid uu aasaasayna waxay noqdeen koox adag oo xoogaysatay, waxayna awoodeen inay gacanta ku dhigaan xaafado iyo meelo badan oo ka mid ahaa magaaladii ximis. xitaa waxay ku dhowaadeen cabdilbaasid ee kooxdiisii inay xoreeyaan magaaladii ximis dhammaanteed. laakiin xukuumadda bashaar al asad waxay u adeegsadeen magaaladaas iyo kooxdaas siyaasad kale oo waxay go'aansadeen inay gubaan magaaladii gebigeediiba oo ay burburiyaan magaaladii oo dhan. waxayna awoodeen inay ku goodoomiyaan cabdilbaasid iyo kooxdiisii xaafad ka mid ahayd magaaladaas ximis. isaga iyo koox yar oo kalena waxay haayeen qaar ku go'doonsan meeshaas oo la dagaalamay ciidan dhan oo bashaar al asad uu iska leeyahay. waqtigaasna go'doon kala go'doomiya cabdilbaasid iyo kooxdiisu wuxuu ahaa mid aad u xun oo waxay sheegeen qaar ka mid ahaa dadkii la joogay cabdilbaasid waqtigaas inay ahaayeen qaar mara meelaha dhulka hoostooda mara ee wasakhdu ay marto si loogu keeno kooxda yar ee uu ka mid yahay cabdilbaasid cunto ay cunaan iyo waxay ku noolaadaan. iyaguna waxay ahaayeen qaar aan isdhiibin oo la dagaalamaya ciidankaas tirada badan. waqtigaasna sidoo kale xaakimkaas daalinka ee bashaar al asad wuxuu ahaa mid laynaya qaar badan oo ka mid ah ehelkii iyo qaraabadii cabdilbaasid si ugu cadaadiyeen qoyskiisu ay ka dalbadaan inuu isoo dhiibo si looga joojiyo dhibaatadan lagu wado qoyskiisa. kadib cadaadisyadaas tirada badan ee lagu sameeyey ninkaasna oo la laayay ehelkiisii iyo waalidkii iyo walaaladii, haddana muu isoo dhiibin cabdilbaasid oo kamuu bixin sidii lagu qasbayey safkii iska caabinta kumanuu soo biirin safka daalimiinta. waqtigaasna wuxuu noqday cabdilbaasid astaanta uu leeyahay kacdoonku iyo astaanta ay leedahay iska caabinta dulmidiidka. dadkii oo dhanna way jeclaadeen oo waxaa lagu jeclaaday wiilkaas dhallinyarada ee wax walba loo sameeyey si looga leexiyo mabaadi'diisa iyo waxa uu ku dagaalamayo, laakiin laga leexin kari waayey wax walba oo la sameeyey, isagoo ku waayey mabda'aas uu ku taagnaa waalidkii iyo qoyskiisii oo dhan. ciidankiisii iyo kooxdii uu maamulayeyna ilaahay ayaa u hiiliyey oo waxay gaadheen inay xoreeyaan magaaladii ximis inteedii badnayd oo ay ka xoreeyaan xukunkii daalinka ahaa ee bashaar al asad. laakiin nasiib darre intii lagu guda jiray dagaaladaas uu ku jiray cabdilbaasid waxa soo gaadhay dhaawac aad u halis badan sababtoo ah waxa ku dhacay gantaal weyn oo laga soo tuuray taangi kaasoo isaga toos loogu beegsaday oo la rabay in nafta lagu dhaafiyo oo lagu dilo. isagoo ku dhacay gantaalkaas halista badan ninkanna haddana ilaahay amarkiisa umuu dhiman markiiba uu sii noolaaday. waxa soo gaadhay dhaawacyo xunxun jidhkiisa oo wuxuu noqday mid dulyaal ah laakiin wuu noolaa umuu dhiman. si kastaba ahaatee taariikhu markay ku beegnay 6dii bishii 8aad ee sanadkii 2019 oo ahayd muddo laga joogo hadda 5 sannadood ayuu ku dhintay cabdilbaasid sariirtiisa dushiisii isagoo u dhintay dhaawacyadaas halista badan ee uu kala kulmay gantaalkaas lagu soo riday. halkaasi uuna ku shahiiday ninkaas astaanta u ahaa iska caabinta iyo dulmidiidka, waxaana loo dhigay janaasadii ugu weyneed ee ka dhacday dalkaas suuriya oo waxaa kasoo qayb galay janaasadii cabdilbaasid dad gaadhaya 100,000 oo qof oo sii galbiyey meydkiisii iyo janaasadiisii. الله يرحمه الله يخليه يا رب. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. يا شباب الله يعودهم بجهدها ان شاء الله، الله يعودهم بجهدها ما بضيع ان شاء الله دم الشهداء جعفر ان شاء الله، الله يعودهم بجهدها انت على راسهم انت على راسهم ان شاء الله، الله يعودهم بجهدها. laakiin dhimashadiisa kadib muu dhiman kacdoonkii uu aasaasay cabdilbaasid sidii ay filanayeen ay rabeen xukuumadda bashaar al asad, wuuna sii ballaadhay oo waxa ku soo biiray dad badan oo kale ilaa laga saaray oo laga riday xukunkii daalimka ahaa ee bashaar al asad waddankii oo dhan. intaas uuna ku eegyahay daawadayaal muuqaalkeena maanta. hayloobin hadduu ku qanciyay muuqaalku inaad like saarto, subscribe inoo saar haddii aad ku cusub tahay channelkeena ogaal cusub. waad mahadsan tahay.